السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفكي نولاد هدف الآن وحود انتا شرف الآن noloshu waa mid macaan badan markaan fahanno sababta aan u noolahay wayna adkaanaysaa marka aan mushkiladaha iska xalin weyno mana jirayso mar haddaan ka quusanno xalinta mushkiladaha jacaylku waa mid macaan badan marka daacad la isku yahay waana mid adag waqtiga kala tegidda mana jirayo mar hadday khiyaano timaado yuusan ku kadin muuqaalka kore ee dadka sababtoo ah biyaha badduba marka korka laga fiirinayo way qurxoon yihiin marka la dhadhamiyana way dhanaan badan yihiin ha ka fikirin mustaqbalka waxaad qaban lahayd sababtoo ah nebiyaduba arri bay raaceen kadibna ummaday hoggaamiyeen ha ku noqon caasi waalidka sababtoo ah adigaba mar baad noqon waalid waajib maahan inaad noqoto qof weyn si aad u noqoto qof xikmad badan meeqaa qof oo yarba xikmadda sidii biyaha oo kale uga socotaa meeqaa qof oo weynna wax xikmad ah aanan keeni karin qof walba oo xariir ama dahab ku labista macnaheedu ma ahan inuu qofkaasi amiir ama boqor yahay qof walba oo ku seexda sariirna macnaheedu ma ahan inuu qofkaasi faqiir yahay haddii aad doonto guur ha raadin gabar aad guursato laakiin raadi nin rag ah sababtoo ah gurigii nin rag ah u joogo ayaad ka helaysaa gabar kuu qalanto ha isdhihin qofka aamusani waa jaahil meeqaa aamusan baa hadday hadlaan qalbiyadu khushuucaan